أرضي يفتينك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيار شرفت له مقعيو محمد عبد الله محمد كسر هذا بروجكتي OOB C++ هلا كان عاو وحنا كسو قدبينينا بروجكتي متكاسو خصية Object Oriented Programming oo barnaamijkayagu waa projectkayagu contactgiisu waa dhowr qodob qaybta koowaad waxay noqonaysaa explanation of class and objectives qaybta labaadna waxay noqon doontaa coding of polymorphism dabcan qaybta koowaad oo part 1ka ah waxaynu qeexitaan sida ciwaanka ka muuqata waxaynu explanation iyo qeexitaan ku samayn doonaa object orientedka marka la joogo C++ class waa maxay soo kalena objects waa maxay qaybtana koowaad labada eray waxaanu u samayn doonaa qeexitaan oo maaragtay mid kasta iyo wuxuu yahay baynu isla fiirin doonaa sidoo kale qaybteena labaad waxaanu iyadana ku dul istaagi doonaa oo aynu ku fiirin doonaa hadduu ilaahay nafta nagu simo inaynu coding ku samayno code ka qorno theory-ga loo yaqaano polymorphism haddaynu ku bilowno qaybteena koowaad waa explanation-kaynu ka hormaraynaa introduction yara bal horta waxaynu ka bixinaynaa C++ iyo object oriented marka la joogo object oriented waxaa aasaas u ah oo aynu oran karaynaa the basic building block waxa u ah laba shay object oriented C++ laba shay waxay u yihiin aasaas arashayga koowaadi waa waxa loo yaqaano class waxa loo yaqaano ayaa marka koowaad aasaas u ah macnaha marka C++ aynu qeexayno waxaa muhiim u ah object oriented C++ aragtida loo yaqaano class baa muhiim u ah sidoo kale waxaa iyaduna muhiim kala ah aragtida iyadana la yiraahdo objects labada shay marka aynu joogno object oriented C++ waa muhiim waana basic building block ayay waxay u yihiin object oriented programming C++ haddaynu gudaha u sii galno waa maxay class iyo sidoo kale waxaynu kaga jawaabi doonaa midka xiga waa maxay object haddaynu dib u laabano aynu hore u soo ogaanay object oriented programming labada shay ee muhiimku ah waxaynu soo sheegnay in ay yihiin class iyo object labadaas aynu soo ogaanay inay muhiim waa class iyo maxay object waxaynu haddaba intaa wixii ka dambeeya waxaynu fiirin doonaa class oo maxaa tahay object oo maxaa tahay class oo maxaa tahay object oo maxaa tahay baynu ku fiirin doonaa classku waxa weeye waa user defined data type waa data type uu soo gashanayo isticmaalo userka qofka object oriented programkan qofka sameynaya data typekaas classka la yiraahdo wuxuu u haynayaa data which holds data it is own data haynaya oo xog baynu gelin doonaa sida nooga muuqan doonta testing programka aan samayn doono coding aynu samayn doono classka isaga ah data haynaya datadaasi waxay noqonaysaa members iyo functions labadaas way isugu jiraysaa datada uu classku noo haynayo markaynu classka aynu abuurano laba xog buu noo haynayaa baynu niri kow inuu noo hayo membersku waxay qayb ka yihiin classka sidoo kale wuxuu noo hayn karayaa oo memberska iyaduna kasii mid noqon karaya maxay functions haddaynu intaa uga baxno class aynu mar kale dib ugu laabano class waxaynu soo sheegnay is a user defined data type inuu yahay shay data type uu soo gashanayo maaragtay userku data typekaas wuxuu qabanayaa
data xog buu qabanaya xogta uu qabanaya waxa la yiraahdaa members ama member functions waayahay inta waynu isla fahnaa filaya aynu u gudubno object isagoo horta wuxuu hoos yimaadaa class oo marka la sheego class baa waxa hoos imaanaya classkaas object waxa la yiraahdo objectigu waa nuqul dhab ah real instances oo laga sameeyay fasal waa nuqul dhab macnaha waa copy laga sameeyay fasal wuxuu ka kooban yahay maaragtay objectigaas waxa la yiraahdo attributes iyo waxa loo yaqaan methodskaas iyo attributeskaas waxa uu ka soo dhaxlaya oo uu ka soo qaadanaya class waa meesha ku leeyahay class marka la sheego baa waxa hoos imaanay object haddana marka la ku celino an object is a real instance created from a class waa nuqul dhab ah kaas oo laga sameeyay fasal macnaha fasal baa nuqul laga sameeyay nuqul nooca waa copy object wuxuu ka kooban yahay attributes iyo wax loo yaqaan methods attributeska iyo methodskaas xagee uu ka keenaya wuxuu ka soo qaadanaya oo ka soo nuqul kaga soo qaadanaya classki ayuu ka soo qaadanaya waayahay waxaynu u gudbaynaa qaybteena labaad oo ahayd coding haddaynu waxay dib u laabano waxaynu soo sheegnay baartigeena labaad inuu noo noqon doono maxay coding of polymorphism waayahay waxaynu isla fiirinaynaa codekan halagan ku qoran hashtag include stream using public char grade classkayga magaciisa waxa la dhahaa waa student baa la dhahaa classkayga magaciisa waa public weeye function ku dhex jira waa grade u fiirsa marka functionskaas waa saddex waa labo waa functionka labaad soo maaragtay waa saddex functionka u dambeeya u fiirsa marka saddexdooda function kaliya waxay ku kala duwan yihiin parameters magacu waa isla mid koowaad waxa la waa grade kalabaad waxa la waa grade ka saddexaad waxa la waa grade u fiirsa kaliya waxay ku kala duwan yihiin parameters functionka kooda grade wuxuu leeyahay koob labo saddex parameter function kale wuxuu leeyahay koob labo parameter function u dambeeyana wuxuu leeyahay maxay hal parameter saa daraadeed polymorphismku waa in function name-ka magaciisa la soo celiyo laakiin parameterka functionskaas ay leeyihiin la kala duwan waayo intan dambana waa habkii loo maaragtay objectigiisa loogu magacaabayay iyo insha allahu tacaala iyadoo maaragtay shaqo ah waynu wada arkaynaa aynu testing aynu qaybteeni testing codeka aynu u gudubno waayahay waa kan halkan koorkii hadda aynu sharaxayno isla fiirfiirinayno weye halkan dabcan waxaa ku jira waa classka magaciisa waxaa la waa student hadda kaa soo sheegnay saddex function baa ku jira waa functionka koowaad functionka labaad iyo functionka u dambeeya oo saddexaad saddex function saddexdoodana waa isku magac waxaa la dhahaa wada grade waa grade kana soo kale kana waa grade soo ma aragtaan kaliya waxay ku kala duwan yihiin parameterka kan koowaad waa saddex parameter koow labo saddex kan labaad waa laba parameter sida meesha ka muuqata koow iyo labo kan u dambeeya waa hal parameter waaye korka isaga bal aynu maaragtay test gareyno testigiisa fiirinaynaa waaye si automatic u soo baxay soo maaragtay si automatic u soo baxay korka isaga marka code
tusaale inoogu ah polymorphism waana aragti saxa dabcan intaas waxaa inooga eg barnaamijkii projectigii aynu ku soo talagalnay mar haddaynu halkan isla soo gaarnay waxaan rajaynayaa inaan wax badan aynu kala faa'iidaysanay intaasaan kusoo gabagabeynayaa waa anigu ah maxamuud cabdullaahi maxamed waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu